sida aad marka su-aasha noo weydiisay golaha guurtida maanta waanu hortagnay waana laga yeedha haddaanu 3 xisbiba nahay si aan mowqifteedana u sheegno warkii ugu dambeeyana uga warranno oo halkii xaalad marayso aanu isweydaarsanno hawlaha socdaa waa ogeedeen waxaa ku dhex jiray intii muddaaba xubno badan oo ka mid ah deeq-bixiyayaasha ama dunidana caawisa waxayna tartaa xagga horumarinta dhaqaalaha iyo xagga geedi socodka dimuqraadiyadda waxay naga taraysay doorashooyinka waxay naga taraysay diiwaangelintii gacan naga siisay caam ahaanna somaliland saaxiibada badan ee dunida ku nool ee nala shaqeeya oo dhinaca waxaa kaloo inuu ku hawlanaa inay nabadgelyo ka abuuraan si jawi safgarasho loo abuuro dad badan oo gudaha ah oo salaadiin leh oo culamaa udiin leh oo baaca mushtar leh oo waxgarad kale leh oo saxaafadda leh waxaasoo dhan yuhuuntoodu meel bay isugu wada tegaysay oo inaga wada codsanayeen intaasoo dhan waxaa inaanu dejinno xisadda dejinno in la isugu yimaado oo khilaafka la baabiyo oo laga wada hadlo oo mal la isla dhigo oo aanu yeelnay waan uga warrannay qodobada ku yaalla heshiiska ah heshiiskaasoo duruucdiisu weliba tahay muddada ka hadlay ee la gaarayaha farsamada lagu jiro ee gacanta ay ku haynayaan dadka deeq-bixiyayaasha ah iyo farsamo yaqaanada ay soo diraan in la yeelo muddadana loo kordhiyo madaxweynaha maanta jooga wakhtigiisii loogu kordhiyo annagoo ku salayna heshiisyadii hore loo gaadhay iyo iyada oo muddooyin fara badan dhowr jeer hore doorashada dib u dhigay oo xilkiisu ka soo bixi waaya uu ahaa iyadoo xasiloonida daraaddeed dalka aan u yeelay ayaa haddana maanta markii naloo yeedhay waxaa iman waayey xubnihii ka tirsanaa guddida udub xisbiga udub ayaa iman waayey waxaa ka muuqatay markii aanu ka baxnay ee doodii sii socotay in udub xubnaheeda taageersan golaha guurtidu oo isku halaynaya inay iyagu halkaa ay socodsiin karayaan cod ay doonayaan in heshiisyadii la gaadho ka boodaan maslaxaddooda ka boodaan wixii la wada gaadhay ka boodaan oo ku khasbeen hoggaankii golaha guurtida inuu deg deg usoo dhigo oo ay ku dhuftaan muddo ka badan 7 bilood qaadanaysa loogu dhufto muddo sanad qaadanaysa loogu dhufto kordhintii madaxweynaha maanta jooga taasina wax suurtoobaysa maaha sharcigay ka soo horjeedaa maslaxadday ka soo horjeedaa taariikhda soomaalida o dhan bay ka soo horjeedaa waa baabi'in dalka iyo ummadda ah waxaa iminka wararku lagu soo gaarayaan in meeshii ciidamadii sii xidheen in la doonayo aroorta lagu fidiyo kadib ayaa gudoomiyaha xisbillahi raxmatu salaam maxamed sallallahu alayhi wasallam tilaa maadi subhanahu wa ta'ala waxa weeye arrintan maanta ka socota guurtida waxa weeye waa arrin aad iyo aad Soomaaliland khatar u gelinaysa weeye madaxweynaha ayaana ka dambeeya waxa weeye muddadii way madaxweynaha ka dhamaanaysay ee sharcigu sheegay waa 29 Oktoobar baa weeye 27 Sebtembar baan ku ordinay bay ilaahin 17 waxa dhici lahaa doorasho komishanka qabtay komishanka wuxuu qabtay waqti doorasho dhacayso bilna waxa laga dambeeyay mandate-ka madaxweynaha marka waxa weeye arrin uu ku mujaxaabinayo heshiiskii ay soo qoreen bulshada caalamku uu ogolaaday xalayto isla maanta haddana doon inuu isagii mujaxaabiyo waa hore idinku sheegay waxaan idhi madaxweyne riyaale sharci wuxuu yaqaan wuxuu jecel yahay sharci oo dhan uu burburinayaa waxaa ka markhaatiya ninkii sharci yaqaanka ahaa ee guurtida la taliya sharciga ahaa ee 17 bisha guddoonka guurta ka cadeeyey inay tahay mandate-ka madaxweyne 29 ka dhacaysa Oktoobar ayuu inta u yeelay bedel waxa tiraha 27 Sebtembar ka dhacaysa yani waxa weeye waa shakhsiyad ka soo horjeeda inay hay'ad samaysto institution uu burburinaya sharci oo dhan uu ka soo horjeeda marka waxa weeye arrintaasi waxay dalka u keenaysaa khalkhal bay u keenaysaa waa in laga hortagaa hal sano ayuu imanka ii kordhiya odayaan aan waxna akhriin waxna qorin oo maskaxdu gudhay ayuu ku oranayaa waddanka geliya vacuum dawlad la'aan buu ku dhacaya 27 bisha ka gaala waa taa keentay inuu jimcaha ila fadhiisto wax la soo hadlay Mareykanka la soo hadlay waa unacceptable baa ilaahay wax la aqbali kara maaha wax la soo hadlay Ingiriiska wax la aqbali kara maaha ilaahay wax la soo Ethiopia caama la soo hadlay wasiir khaarijiyi waxa weeye cid Allah cid uu ninkaasi accountable u yahay oo bin aadam ilaahay ta accountable maaha marka waxa weeye waxa leenahay anigu waxay la tahay taas arrintaasi waa taan ummadda kala hadlayno waa taan dunida kala hadalay waa waxaan ugu war dul qaadanay
waxaan u malaya dulqaadkii annagu qolay waxaanu yeelayna maha waxa ummaddiiyo dunidu yeelayso iyo waxa shacbi weynuhu yeelayo way u wada taallaa intaasoo dhan bay u taallaa filina maayo inay maanta dulqaadasha jirayso marka ku adkaysiga uu ku adkaystaa waa mid uun muujinaysa dareenka uga qabo doonayo inuu dalka iyo dadka baabi'iyo taana waa la iska hortaagay sidii la iska hortaagayaba waxa yahay waa dowlad bilaa sharci ah la waxaan saddex xusbi oo tartamina hadduu xusbi iska samaysta muddo kordhin uu iska samaysan leera anigu waxaan ku talinaya haddaan Faysal ahay in anaguna aanu dowlad samayna labadii midkood madaxweyne u yahay waliba aan ka codsanaya aniga inuu ii daayo siiraayo marka waxaa dhici doontaa kaayigii shacbigu raaco